الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد قدومك لبضع أقل قدك دورشوينك بارلمانك حلمانada baarlamaanka marti sharafta ku sugan howlkan mudanayaal marweyn iga gudoomo salaanta muslimka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaan idinku hambalyaynayaa doorashada la idin doortay xilka xildhibaannimada baarlamaanka oo ah mas-uuliyad aad u culus oo u baahan dabar adeeg, isku kalsooni iyo alla ka cabsi. ilaahay casaa wajalla ha idin fududeeyo xilka, xigmaddii aad ku gudan lahaydeen allah idiin sahlo. mudanayaal marweyn waxaan idinkaga mahad celinayaa sidoo kale fursadda maantay aad siiseen inaad hor imaado oo aan idiin soo jeediyo ajandaha qorshahayga iyo sida aan la doonayo Soomaaliya 4 sano ee soo socota. xildhibaanada sharafta leh, xaqiiqdii Soomaaliya waxay ku jirtaa amba ay joogtaa isgoys khatar ah oo aad u dhib badan. isgoyskaas halista ana wuxuu u baahan yahay in laga taxadaro. waxaana wada saarana mas-uuliyad anagoo dhan dusha naga saaran in Soomaaliya laga gudbiyo isgoyskaas muhiimka ah. waxaan aaminsanahay in 4 sano soo socotaa ay ka qiimo badan tahay, ka qatarsan tahay 30 sano soo dhaafnay. haddii 4 sano aan lumino fursadda dowladnimada Soomaaliya, dhibaato culus ayaa ummadda Soomaaliya soo gaarayso. 10 sano u horreysay dowladnimo raadinaynay, 10 ku xigtay waxaan bilownay inaan xoogihii dowladnimada barasho ka samayno, 10 ku xigtana waxaan bilownay socodkii dowladnimada. 4 sano ee hadda bilaabanayso, 10 sano soo socotaa haddaan si taxaddar ah looga fekerin waxaan isleeyahay waxay keeni doontaa in ay wax naga khasaaraan. haddii aad isiisaan kalsoonidiina xildhibaanada baarlamaanka labada aqal anagoo kaashanaya hay'adaha dawliga ah, waxaan fulin doonaa qorshe siyaasadeed oo 4 sano soo socota. waxaan isleeyahay dhowr qodob oo muhiim ah ayaan ka taabanayaa waqtiga maadaama uu yar yahay. qodobka u horeeya waxaa weeyaan qodobka dib u heshiisiinta. guddoomiyaasha labada aqal xildhibaanada mudanayaal, dadka Soomaaliyeed waxaa inta badan maqashaan dib u heshiisiin ay u baahan yihiin. xaqiiqdii dad Soomaaliyeed oo is haysta oo qabiil ah ma jiraan. waxaa la isku haystaa dhibaatada dhex taagan tahay waa dad arrimo salka ku haya siyaasadeed, amba waxaan idhahdaa colaad salka ku haysa siyaasadeed. Soomaaliya ma jiro qabiil la dagaashan, qabiil qor u wata ma jiro. xaaladda waa laga soo gudbay. anigaa qayb ka ah dadka ka soo shaqeeya 25 sano u dambeysay. waxaa jiro argoosi iyo cadaawad siyaasadeed oo ay horinayaan siyaasiyiinta. haddaba dib u heshiisiinta aan qorsheynayna waxay noqon doontaa dib u heshiisiin xal loogu gaarayo caqabadaha siyaasadeed ee ka jira dalka. doorashada dhowaan soo idlaatay oon ka wada qayb galnay waxaad dareemaysaa waxay abuurtay kalsooni darro, kala fogaansho, cabsi iyo walwal. 5 dowlad goboleed ee dalka ka jira, deegaan kasta ay ka tirsan waxaa ka jiro caqabado iyo kalsooni darro shacabka ah. deegaan kastoo Soomaaliya ka mid ah walwal badanaa dadka ku jiro. ma aha dadku inay isnacab yihiin, ma aha dadku inay dhibaataysan yihiin, laakiin qaabkii maamulka doorashada ayaa wuxuu sahlay culaysyo ka yimaadeen. deegaanada qaarkood waxaan ka cabsi qabnaa in dagaallo siyaasadeed ka dhashaan. waxaa marka lama huraan ah in la sameeyo dib u heshiisiin suuragal ka dhigaysa in arrimaha noocaas camal xal loo helo. waxaana xal u heli karo qof dhexdhexaad ka ah, aan ka qayb gelin, kalsoonida shacabkana haysto, iyadoo baarlamaanku ay taageerayaan. waxaan qorsheynaynaa hirgelinta qorshe aan ugu magac darnay xaldoon.
xaldoon waxa ula jeednaa labadii sano maadaama dhibkaa dhacay qorshaha ugu horreeya waxa uu yahay dowladda la dhisi doono inay noqoto dowlad dib u heshiisiineed ama dowlad midnimo qaran oo ay wakiil ka yihiin amba ay ka wada tirsan yihiin dowladdii hore dadkii ka soo shaqeeyey dowladda hadda jira dadka ka shaqeeyey oo ayan noqon dowladda ugu beegsada shakhsiyaad tallaabta u horreyso la qaadaa waa iyada waana adag tahay in institutionkii dawliga ahaa amba hay-adihii dawliga la dhiso ilaa ma aan xal ka gaarno amba aan xal u helno cuqdooyinka kala fogaanshaha iyo argoosiga dhexdeenna yaallo qodobka labaadoo aan isleeyahay dib u heshiisiinta muhiimaddiisu laftigiisa qayb ka yahay waa arrinta la xiriirta dadka nabaddiidka ah oo xaqiiqda u baahan dhallinyarada dagaalamaysa ee dowladda la dagaalamaysa dhallinyaro waxaa jira aan xajirkooda limidkooda leeyahay in marka la bilaabo wadahadal la furo oo aad looga faa'iidaysto waxaan kaloo qorsheynaynaa laba qodob oo muhiim ah guddiga dib u heshiisiinta qaran wuu jiray dhowr iyo 10kii sane u dambeysay wuxuu u baahan yahay dib u habeen iyo in dib loo nooleeyo si guddigaasi u noqdaan guddi suuragal ka dhiga dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan inay ku wada hadlaan waxna ay iska wadhaan waxaa jira also oon qorsheynaynaa in la abuuro wasaarad gaar u ah wasaaradda dib u heshiisiinta la yiraahdo oo howlo badan oo kala nooc qaban doonto laakiin muhiimaddu ay tahay in muhiimadda la saaro shacabka la isku soo dhaweeyo haddaan la isku soo dhaweeyno dhibaatada imaanayso waan ugu balaaranaysaa arrimaha amniga markaan dib ugu noqdo qodobka labaad wax ka taaban rabo amba aan yiraahdo dib u dhiska hay'adaha amnigu waa qodobka ugu muhiimsan marka ay timaado dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya iyo hay'adaha qaranka iyadoo amniga dalku uu walaac xooggan ku hayo shacabka Soomaaliyeed beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliya hanaanka falcelinta ku dhisan ee waqtigan xaadirka ah loo maareeyay amniga gudaha ma aha mid saameyn ku yeelan kara dib u soo celinta amni buuxa dalka uu helo si dib loogu dhiso hay'adaha amniga qaran waxay u baahan tahay taageero aragti fog iyo nidaam cusub oo horumarsan iyo istiraatiijiyo ka jawaabaysa baahida hay'adaha amniga qaranka taas oo aan xaqiijin doono in hay'adaha amnigu noqdaan kuwa ka madax bannaan arrimaha siyaasadda waxaa sidoo kale si dhab ah ula dagaalami doonaa amba aan wax ka qaban doonaa arrimaha argagixisada iyadoo ay noqonayso wajiyo badan yeelanayso way adag tahay inaan ka adkaano kooxaha nabadiidka ah ilaa nabaddu ay ka qayb galaan shacabka Soomaaliyeed marka waxaa jiri doona qorshooyin aan ugu talagalnay in shacabka Soomaaliyeed qayb ka noqdaan talo ku yeeshaan aragti ku yeeshaan haddii qofka dariska uu soo sheegi karo qofka shabaabka ah way adkaanaysaa waayahan dambana waxaa muuqato in nabadiidku laftigoodu ay dhex galeen arrimaha dawliga aan ku dhex jirno xildhibaanada sharafta leh haddii aad kalsoonida siisaan dowladdan soo dhisan doona waxay dalka ku hogaamin doontaa aragti siyaasadeed amni oo cad taas oo ay ku midaysan yihiin dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaan saldhig u noqon doona heshiisyadii hore amniga loo gaaray waxaa jira heshiiskii lagu gaaray London heshiiskii lagu gaaray magaalada Baydhabo heshiisyo waxaa jira loogu talagalay in amniga lagu wada wadaago heshiisyadii way baaba'een wax ka shaqeeya malaha in dib loogu noqdo ayaan ka shaqeyn doonaa arrinta xoojinta federalismka sida la wada ogsoon yahay dalkeenu waa federaal dastuurka qabyada ahna waxa uu si kooban u kala qeexaya awoodaha hay'adaha dawliga ah ee federaalka iyo dowlad goboleedyada nasiib darro dowladda hadda jirta waqti badan bay waxay gelisay in dhaawac la gaarsiiyo hanaanka federal structure-ka ee dowladdu u dhisan suuragelina burburinta nidaamka federaalka dalka waxa ay dowladda aan dhisi doona xaqiijin doontaa in la tardargeliyo nidaamka federaalka iyada oo dowlad goboleedyada laga caawin doono in adeega dawliga ah la siiyo dhammaan qaybaha kala duwan ee sida tuulooyinka degmooyinka waxaa dib u habeen lagu samayn doonaa qaab dhismeedka dowlad goboleedyada si ay u yeeshaan dhismo dowladeed sidaa la socotaan dowlad goboleedku hadda waa madaxweyne waa dowlad cabinetkii amba golihii wasiirada way jiraan laakiin xaqiiqda tuuladii iyo degmadii maysan gaarin haddii dowlad goboleedka la dhiso oo hoos laga soo dhiso oo dadka deegaanku ay doorasho galaan oo doorashada degmada laga soo doorto oo degmada laga soo doorto oo kor u socoto ilaa guddoonka la soo doorto waxay suuragal ka dhigaysaa dowladdu iswada socoto canshuur la qaadi karo nabadiidka looga adkaan karo qodobka saddexaad waa qodobka dastuurka qabyada ah waxa uu in ka badan 17 sano ku soo jiray geedi socod kaas oo ay ku baxday dhaqaale aad u fara badan
waxaan qirayaa in shaqo badan laga soo qabtay dastuurka dalka laakiin waxaan heshiis lagu gaarin qodobadii asaasiga ahaa qodobadaasna waa qodobada la yiraahdo arrimaha siyaasadda ee u baahan in go'aan laga gaaro arrintaas xalay u baahan tahay in wax laga qabto waana arrimaha isleenna waxaan qorsheynaynaa marka labada sano u horeyso in qeybaha la isku haysto 7 qodob muhiim u ah iyo arrimaha xasaasiga u ah in la helo iyadana ma imaan karto haddaan dib loogu noqon arrimaha dib u heshiisiinta haddaan heshiis jirin u dhaxeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada marna ma suuragelayso in xal loo helo arrimaha dib u heshiisiinta qodobka la xiriira dastuurka waxa uu yahay waxyaabahan aad iyo aad aniga aad u xiiseenaya waxa ay tahay in 4 sano kadib aan howlka isugu nimaadno oo niraahno waxaan dooranaynaa qof arrintaas waa arrin aan isleenahay waa ku soo daalnay waqti badan ay qaadatay waxaa qorshuhu yahay sanad 4 sano kadib dalka inuu gaaro qof iyo cod oo dadka Soomaaliyeed ayagoo isku qalbifiyo ay doortaan hoggaan ay raali ku yihiin qorshaha marka aan damacsana marka dastuurka hadlayna waxa ay tahay in la iswaafajiyo in muwaadinka Soomaaliya xaqiisa la siiyo arrimaha garsoorka sida ula socotaan waxyaabaha ugu waaweyn ee sababta u noqda burburka dowladnimada Soomaaliya waxa ugu weynaa maqnaanshaha garsoor madax bannaan iyo helista cadaalad lagu kalsoonaan karo sida daraadeed haddaad kalsoonida siisaan waxaan dowladda aan soo dhisi doono ay mudnaanta ku siin doontaa dhismaha tiirarka garsoorka madax bannaan iyo in muwaadiniinta helaan cadaalad la hubo oo garsoorka dalku u noqoto mid ay u sameeyeen madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed wax kasta oo isku haysanaa waxaan aaminsanahay inay soo dhamaan lahaayeen haddii ay jirto cadaalad loo sameeyahay ama cadaalad garsoor sare horumarinta dhaqaalaha waqti badan inaan geliyo ma rabo laakiin waxaan idiin sheegayaa waxyaabaha ugu ballaaran ee hadda asalka noo ah ama culayska ugu ballaaran Soomaalida haysta waxa uu yahay arrimaha dhaqaale sal noo ah oo aan leenahay oo dadka Soomaaliyeed ay isticmaalaan ma jirto magaaladan Muqdisho tusaale haddaan ka soo qabano 3 milyan ku nool shaqaalaha dawladda waa 6 kun tiro lagu qiyaasay ciidanka marka la isku daro 40 kun ay gaarayaan magaalada waa 3 milyan marka wax shaqo la yiraahdo la taaban karo ka jira malaha in shaqooyinkii dib loo abuuro gaar ahaan shaqo abuurka dhalinyarada muhiimad qaas oo leeyahay waxaan la dagaalami doonaa shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta iyadoo aan abuuri doono mashaariic shaqo oo ay ka faa'iideystaan guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed si u yareeno tahriibka ka qayb qaadashada arrimaha dagaalka argagixisada amba aan dalkooda u jeclaysiin dhalinyarada si dalku ugu soo laabto uga soo kabta dhibaatooyinka dhaqaale haysto waxyaabahan muhiimadda saari doonaa waxay tahay kaabayaasha dhaqaalaha arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda waxaan isleenahay arrimaha siyaasadda dibaddana waxay noqotay arrimo si qaas ah ama si gooni ah loo isticmaalo oo ayan ahayn dalan qaas laga sameeyo marka dib u habeen xoog leh inaan ku sameeyno arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda waxay kamid tahay arrinta muhiimka ah arrinta Soomaaliland oo dhowr mar laga dhawaajiyay aniga waxaan qabaa shirarkii la qabtay meelihii lagu qabtay iyo dadkii qabtay waxaan dad ajnabi ah ma ahayn mid Soomaali dhexdeeda ah waxyaabahan qorsheynayna waxa ay tahay in la helo oo kama dambeys ay tahay in dawladda Soomaaliya dhexdeeda iyo shacabka Soomaaliyeed ay wada hadal dhexdooda furaan ay qayb ka tahay marka fashilkii ugu weyn ee ku yimid wada hadalkan wuxuu ahaa dad shisheeye ayaa hogaaminayay waxaan qorsheynaynaa in dhaqso loo abuuro jawi ay ku hadlaan dadka Soomaaliyeed dhexdooda ay ku hadlaan daryeelka xildhibaanka gudoomiyaasha labada gole xildhibaanada mudanaasha marwooyinka haddaad igu aamintaan kalsoonidiina waxaan idiin xaqiijinayaa in baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu fududeyn doono in xildhibaan kasta oo ka tirsan labada gole uu yeesho xafiis u gaar ah xogeyn iyo ilaalo si loo fududeeyo in shaqada qaranka uu u guto si hufan oon walwal ku jirin xildhibaanada waxa ay heli doonaan damaanad caafimaad iyadoo loo fududeyn doono inay helaan daryeel caafimaad iyagoo qoysaskooda gabagabadii gudoomiyaasha labada gole xildhibaanada mudanayaasha marmooyinka waxaa la idin dhaariyay maalin Ramadaan ah waxaadna Ilaahay hortiisa ku ballan qaadeen in dalka iyo dadka aad ugu adeegaysaan si daacad ah mudanayaal iyo marwooyin codka aad maanta haysataan waa ammaano Ilaahay idinku aaminay maanta waa maalintii ugu qiimaha badneed ay raada 15 bisha waa maalintii ugu qiimaha badneed codkiina isticmaali doontaan waxaan idinka codsanayaa idinka in aad ugu aamintaan codkiina si dalka looga saaro xaaladda adag ee uu ku jiro ugu dambeyntii mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada karaamada leh xildhibaan karaamo leh ayaa keena dawlad karaamo leh dawlad karaamo lehna waxaa keena hoggaan karaamo leh
sidaa daraaddeed waxaan idinka codsanayaa inaad igu hiilisaan codkiinna anoo idinka ballan qaadayo inaan soo dhisayo dowlad la wada leeyahay oo dadka Soomaaliyeed u horseeda waddo cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.